cashirkeena galabta insha Allah cashirkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa English vocabulary ama ereyo cusub oo Ingiliisha kuwaas oo isku day doona inaan af Soomaali ku turjubno insha Allah marka dhageysi haboon English vocabulary ereyo cusub oo Ingiliish af Soomaali ayaa halkan inoogu qoran kalarka guduudka ah maadaama ay qaybtaan af Soomaali tahay investigation maxaan dhahnay baaritaan investigation baaritaan wax la baarayo ama la ogaanayo asalkiisu wuxuu ahaa sidii dambi kolku dhaco kale in la ogaado waxa dambiga geystay meeshuu ka dhacay ee wuxuu ka yimid iyo sababtu u dhacay opportunity fursad shaqo fursad dhaqaale fursad caafimaad fursad waxbarasho sida dooni adiga u dhigo fursad opportunity ereyo badan oo meeshan ku jira ma dhawaaqayaan opportunity fursad benefit faa'iido tusaale dad shay gadamaanta aad ku gado adano $100 ama $50 aan dhahno ood kadib $100 ku gadato waa faa'iido weyn ama tusaale shay aad gaday oo dib u sii laba iibisay kadibna aad faa'iido ka heshay noqonaysaa trade waa ganacsiga caadiga aan ganacsi u naqaano maxaa la dhahaa trade ayaa la dhahaa ganacsi waa garanay consumption ereygan dhawaaqiisa waa consumption bidaasi aad uma dhawaaqayso consumption bishimaa waa isqabanayaan laakiin waa consumption isticmaalka tusaale alaabaad soo gadatay qaabkaad u isticmaalaysa simple dukaankaad tagtay waad soo adeegatay waa isticmaalaysaa waxaad ka soo adeegatay dukaanka consumption waa ereyga isticmaalka aad wax shayga isticmaalaysid decisions go-aanada tusaale marka aad qorshe maagan tahay ama aad wax maagan tahay waa inaad qorshaysid kadibna aad go-aan qaadato hawsha inaad ku dhaqaaqdo iyo inaad ku dhaqaaqin decision I have to make a decision waa inaan go-aan gaadhaa decision waa maxay decisions go-aanada waa mid qura way ka badan yihiin waa laba iyo wixii ka badan borrow amaahasho amaahdo ama amaah maxaa u taqaanaa waxay kaloo noqon kartaa daynsasho xoolo aada soo daynsatay daynsi waan wada garanaynaa waxay tahay dayn xoogaa lacag aad u baahatay dhaqaalo kugu filanna ma haysatid waxaa qasaba inaad dayn raadsatid si aad u hesho qiimo kugu filan dayn amaah iyo borrow soo daynsasho daynsasho xoolo aad daynsatay ama aada soo amaahatay labadaba waa isticmaalnaa af Soomaaliga amaah iyo dayn labadaba waa isticmaalnaa amaahna way noqon kartaa daynna waan dhahnaa labadaba waa laba erey oo Soomaaliya oo si sax loogu isticmaali karo dayn amaahasho ama amaahdo ama daynsasho dayn ama amaah dayn ama amaah daynsasho haddii la dhaho waxayba noqon wixii aad qofka soo qaadatay dayn iyo amaah labadaasaa ku amaah iyo dayn labadaasaan ku daysanayna insha Allah waana laba erey af Soomaaliga aanu malayn cid walba inay fahmi karto dayn iyo amaah emergency degdeg ah tusaale xanuun degdeg ah dilaacay qorshe degdeg ah ku soo galay emergency qofku xaaladiisa kolkay aad u adagto xilliyada xanuunku ku dhacaan dadka kalena waxaa lagu leeyahay emergency uu yaalla hebel waa xaalad degdeg ah especially gaar ahaan ama khaas ahaan
special wax gaar ah ama khaasa. Disappointment niyad jab, war baa lagu sheegay maada ku farxin, muddo dheer baad tusaalaan wax soo waday natiijo fiican maada ka keenin, niyad jab baad ka qaaday. Regret qoomamo ama shallayto, waxbaad samaysay ficil aan wanaagsanayn kadib waxaad gadaal ka ogaatay saameyntiisiina waa aragtay, gadaal waxaad ka ogaatay in waxan xun yahay, dhibaatana kuu keensaday, waa ka qoomamaynaysa. Sanki waa quustay tii niyad ka samirkayd ma aha, laakiin waa quus. Tusaale, markabka marka uu mararka qaar cillad soo wajahdo waxaa laga yaabaa inuu quuso, salka biyaha fariisto. Ama qaadi tusaale, shay culus oo miisaankiisu culus yahay haddaad biyaha ku tuurto salkuu tagi. Quusid waxaa kaloo isticmaalay ereyga nimankan malayga dabta oo inta badan waxay sameeyaan way quusaan. Salka badda agteeda jabalada salkooday galayaan, biyaha salkooda halkaasay kalluunka iyo argoosta wax ka soo qabta. Quusid waa shay ka hoos maray shay kale, sida biyaha dhagaxa uga hoos mara ama shayga culus ee biyaha lagu dhex ridaa uga hoos maro. Kaa garanaa ku celinayna hal mar. Investigation waxaan dhahnay baaritaan. Baaritaankaas siyaabo badan bay noqon kartaa. Tusaalahaan oo kale, ganacsadaad tahay, khasaaraad gashay, waxaad baari kartaa reasonkaadu sababta uu ganacsigaagu u khasaaray. Opportunity waxaan dhahnay fursad, waxaan dhihi karaa fursad shaqo, fursad waxbarasho, fursad caafimaad, fursad dhaqaale, fursad ereygaas meelo badanaa loo adeegsadaa. Benefit faa'iido, tusaalahaan oo kale ninka ganacsadaha ganacsigaagii oo faa'iido badan keenay ayaa aragtay. Benefit qof aan wax kuu sheegay wala waxaad faa'iida igu jirtaa dhaad adigana. Faa'iido trade ganacsi ama ganacsiga. Consumption isticmaalka. Decision go'aan qaadashada ama go'aanada. Borrow deyn ama amaahasho ama deyn, xoolo aad qof ka soo qaadatay si aad dhawaan ugu celiso adna aad ugu meel gaadho. Especially waxaan dhahaynaa gaar ahaan. Disappointment niyad jab. Regret shallayto, regret waxaan dhahaynaa qoomamo. Sank quusid ama quustay. intaas agdayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.